رئيسل وزراء حكومة فدرالك Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxa uu ku soo gabagabay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka oo maalintii shalay ahayd ka furmay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya shirkan oo ay ka soo qayb galeen wufuud ka socotay beesha caalamka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedka dalka ka jira ayaa maanta waxa looga hadlay arrimaha amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada shirka intii uu socday ayaa Soomaaliya iyo saaxiibadooda caalamka waxa isku raaceen isla xisaabtan loo wada dhan yahay si wada jir ahna diiradda lagu saarayo meelaha mudnaanta u leh talaabada la rabo in la qaado iyo dhaqaalaha lagu qabanayo si loo xaqiijiyo mudnaanta lafdhabarta u ah natiijooyinka loo baahan yahay in la gaaro ka hor bisha December ee sanadka 2020 madaxda Soomaalida ayaa shirka intii uu socday waxa isku raaceen dhankooda ahmiyadda gaarka ah ay u leedahay wada shaqeynta si horumar lagu gaaro arrimaha siyaasadda arrimaha amniga dib u habeynta dhaqaalaha iyo in ay arrimahaasi u baahan yihiin ka go'naansho adag gabagabadii shirkan heerkiisu uu sareeyo maalintii shalay ahayd ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan taageerada beesha caalamka ee Soomaaliya waxaana warbaahinta u akhriyay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya samaysay waxayna ku amaaneen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh la gaaray ku saabsan fulinta isbedelada laga sameeyay xagga ismaamulka lacagta ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dib u habeynta lagu sameeyey hay'adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay al-shabaab haysatay lana xasiliyo iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada iyo horumarka laga sameeyey dib u heshiisiinta gobollada qaarkeed waxaa la isla qiray inay jiraan weli caqabado ama taxadiyaad ay tahay in laga gudbo kuwaasoo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhallinyarada in dhaqaalaha la kobciyo in la sii wado la dagaalanka al-shabaab iyo in maaragtay arrimaha bani aadamnimada dhibaatooyin ka dhasha guul laga gaaro oo la abuuro waxa la yidhaahdo resilience ama adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka bini'aadamka iyo in asaaska loo dhigo wada tashiga siyaasadeed iyo in la xoojiyo oo la ixtiraamo xuquuqul insaanka iyo in haweenka iyo dadka laga badan yahay la siiyo ka qaybgal iyo matalaad Soomaaliya iyo beesha caalamka goobjoog ah waxay ku heshiiyeen wax la yiraahdo mutual accountability framework oo ah isla xisaabtanka loo dhan yahay